Asalaamu calaykum. Cashirkan waxaan ku qaadanaynaa linkiyada statuska uu maro linkiga visitka hoverka iyo activeka afartaas farqiga u dhexeeyo. So marka hore intaan sharaxaada gelin waxaan qoran doonaa linkiyadan qoran doonaa so kalento waxaan ka dhiganaynaa ilaa iyo 3 xabo. So marka inaad sheegtid waaye referencega. So input reference ka dhiganayna hashtag wuxuu u taagan yahay input reference page-ka markaas la joogo u taagan yahay macnaha linkiyadana waa soo sharaxnay hreftan waxyaabaha waxay u taagan tahay. So hreftan waxa waaye linkiga markii lagu dhufto meesha uu ku geynayo waa hreftan macnaha linkiga markii hadhow lagu dhufto meesha uu tagaayo ayay sheegaysaa hreftan. So marka ilaa 4 xabo ka dhiganayna maadaama 4 state ay tahay mid walbana waxaan ku qoranaynaa oo kaleeto wax adeega about oo kaleeto contact kaleeto iskaan kale waxaan ku qoranaynaa aas oo kaleeto. Hadda markaan save dhahno marka afartooda waa kuwana by default linkigu wuxuu qaataa blue iyo xariiqada hoos oo qaataa. Marka sida iskaga tirno intoodaba marka hore sida iskaga tirno xariiqada hoos waxaan leedahay text decoration nana leenahay xariiqada way ka qaadmaysaa. sidoo kale haddaan rabno inaan kalarka iska bedelno black ka dhigano black ka dhiganayna hadda labadaba waa ka qaadna. marka sidoo kale waxaa u sameynayna inaan kala sikino baadina leenahay 5 biyo kasoo kaleeto xoogaa space helayaan. So marka u nimaano cashirkeena waxaan qaadanaynaa dhahna linki iyo visit iyo hover iyo active. So afartooda farqiga u dhexeeya waa fiirinaynaa. marka waxaa isticmaalaynaa markii oo aad rabtid inaad isticmaashid afartii state waxaa isticmaalaysaa calaamadan kabacdina waxaa leedahay linki. So this means macnaha markay hadda caadiga tahay waa markii oo saan loogu jeedo waan lagu dhufanin hadba nooca noqon doonto. hadda haddaan dhahno colorkiisa red caadiyan hadda colorkiisa red oo noqonaya. marka linki iyo hal mar aan iskula wada sharxi doonaa dhammaantood. midda kalena waxaa waaye visitedkan waxaa waaye markii lagu dhufto kalarkiisana blue kala soo qad. So hadda waxba iskama bedelayan macnaha oo hadda guduudkii u ahaana. sidoo kale midka kale waxaa waaye hal mar aan wada sharxi doonaa laakiin waa wada qoranaynaa marka hore hover oo kaleento. midka kalena waxaa waaye active. So afartan macnaha waxa waaye linki waxa waaye markay hadda linkiga tahay oo caadiga tahay. visitedka waxa waaye markii lagu dhufto oo aan booqdo. hoverkana waxa waaye markii lagu dul aadiyo. activekana waxa waaye the moment markii aan ku dhufto secondkaas aan ku dhufanayo ayaa waxaa la yidhahdaa active. macnaha midka markaas activeka ee aan ku dhuftay ayaa la yidhahdaa active. marka afarta stageba waa kala duwanaysiin karnaa hadba fartaas nooc ay noqonaysa macnaha. hadda markuu linkiga caadiga yahay waxaa dhahan guduud waa markii lagu dhufto wuxuu noqonayaa blue. marka visitedka dhaha visitedka markii la booqdo wuxuu noqonayaa blue. hadda ay tijaabino hal mid aan booqano dadkaana hadda ku dhufano so dhammaantood waxay noqdeen blue sababtoo ah macnaha referencega page-ka isku wada mid ah macnaha oo page-ka meeshuuna geenaya isku wada mid ah. so hal mid haddii aan ku dhufano waxay la mid tahay anagoo intooda ku dhufan. so marka si aan u kala duwanaysiino waxay tegaysaa in fake pages aan ku wada xirno about html so hadda markaa kala duwanaysiino marka midkan keliya wuxuu noqday blue because of midkaana wuxuu leeyahay halka reference gooni u leeyahay midka maxaa leeyahay marka mid walbaba referencegiisa gooni waa marka hadda. so markii visit tahay markii la booqdo wuxuu noqonayaa dhahan blue. hadda midkan haddana ku dhufto midkan marka haddana ku dhufto uu page-ka fake markuu nageeyo wax soo waayo waa soo noqonaynaa kalarkiisu muusan noqonin blue because of page-kaas maba jira oo ma soo qaadanayo. marka haddana next error aan qabsaday. marka waxaa rabaa idinka inaad fahantiin macnaha errorada la qabsan karo. so marka waxaa sameynayaa pageedka sameynaya marka pageedka fake ayaa run ka dhigaya marka about html. so save dhaho midka kalena wuxuu ahaa aan jeclahay as html. so again midka kale muxuu ahaay
contact.html contact.html. so marka hadda pageska marka waa inoo wada samaysan yihiin. so marka hadda save dhahno waa meesha hadda refresh oo kala dhahno marka hadda ku dhufano marka csskeena u tagaynaa marka hore marka hadda aboutka oo kale marka hadda ku dhufano just marka hadda wuxuu noqday blue marka hadda noqday oo wuu isbedelay markii visitor noqdo markaas waa la boqod marka labadan kale ma aanan ku dhufanin oo marka guduud u ahaanaya because labadan waa ku dhuftay maxaa yeelay visitkooda waxa waaye marka waxaa dhahay pagekii la booqdaa markii la booqdo kadib linkigaas kalarkiisa blue ha noqdo hover marka maxaa la yidhahdaa marka hover waxaa la yidhahdaa markii lagu dul aadiyo kaleenta la yidhahdaa hover oo hadda hoverkiisa waxaa ka dhigay kaleenta pinki so hadda marka way ka wada sameeyeen macnaha hoverkan so mid walba markii lagu aadiyo marka wuxuu noqonayaa pinki uu noqonayaa kalarkiisa wuxuu noqonayaa pinki so hadda waxaa ka dhigi karnaa black oo kaleento marka mid walba markii lagu aadiyo wuxuu noqonayaa madow uu noqonayaa macnaha marka ma kala saaraya mala booqday iyo ma kala saaraya macnaha so hadda linki caadi markuu yahay labadan kalar uu qaadanaya kuwan way qaadan lahaayeen because of maxaa yeelay visitedka waxaa dhahan linkigaas haddii lagu dhufto kalarkiisa ha noqdo blue because of that ay u noqonaya labada xabo blue saas u noqonaya labada xabo waxay guduud ku yihiin macnaha wili lama booqan oo marka hadda mid kamid ah ku dhufto wuxuu noqonayaa visited oo wuxuu noqonayaa mid la booqday so kalarkiisana wuxuu qaadanayaa kalarka oo visitedka asiina oo blue oo qaadanaya laakiin hadda linki caadi ee waaye red waaye hoverkan waxa waaye markii lagu aadiyo dhahnay oo mid walba markii lagu aadiyo wuxuu noqonayaa madow uu noqonayaa so active-kana maxaa waaye active-kana waxa waaye markii click lagu siiyo ay waaye marka isagana kalarkiisa aan fiirinaynaa waxaan leenahay green oo kale intaan leenahay kalar la arki kara markaas so marka hadda markii lagu aadiyo waxa waaye hoverki waaye madow uu noqonayaa markii laga qaado linki waaye guduud uu qaadanaya laakiinse visitedka oo waxaa dhahan haddii linkigaas la booqday oo mar lagu dhuftay kalarkiisa buluug ha noqdo that's why hadda uu buluug u yahay markii lagu aadiyana waxaa dhahan hoverka waaye kalarkiisa wuxuu noqonayaa madow markii lagu dhuftana isla markii wuxuu noqonayaa green wax yar aa soo dhaweysano so dama manti aa kili kusii siinayno wuxuu noqonayaa green oo isku bedelaa mujidin mujida wuxuu noqonayaa green so marka hadda haddii aan fiirino kana waxaa rabnaa inuu noqdo visitedka ama aas oo kaleento waxaa rabnaa inuu noqdo visitedka oo marka hadda aas ku dhufano oo aan kasoo noqono wuxuu noqday blue noqday oo wuxuu noqday visited mid la booqdo noqday macnaha oo kalarkiisa wuxuu noqonayaa blue marka qaabka loo qoraayo marka waxaa habboon marka aad qoraysid steedyada linkiga markaa qoraysid inaad sidan u qortid isku xigsanaada inuu linkiga horeeyo macnaha waxaa masti ah hoverka inay ka horeeyaan visitedka iyo linkiga halka active-kana ee masti tahay inuu ka dambeeyo hoverka so marka adiga markaa qoraysid the way iskugu xigaan u qoraysaa waxaa horumarinaysaa linkiga horumarinaysaa kabacdi waxaa qoranaysaa visitedka kabacdi waxaa qoranaysaa hoverka kabacdi waxaa qoranaysaa activeka markaasna adiga kalarkaa doontid iyo waxaa doontid even waxaa ka bedelan kartaa background waxaa oran kartaa markii lagu aadiyo backgroundigiisa ha noqdo yellow kaleeto backgroundigiisa ha noqdo so marka hadda markii lagu aadiyo mid walba backgroundigiisa wuxuu noqonayaa jaalle so marka waxaa oran kartaa marka linkiga caadi markuu yaho kaleeto waxaa oran kartaa in backgroundigiisa uu ahaado babal oo kaleeto oo markuu caadi yahay uu noqonayo kalarkiisa babal marka linkigu micnihiisa waxa waaye marka uu caadiga yahay oo markaas uu userka markaas uu ujeedabo qaabka uu yahay markii lagu aadiyo waxaa loo gudbayaa stateka oo waxaa loo gudbayaa hoverka loo gudbayaa markii lagu dhufto waxaa la qaadanayaa stateka markaas waxaa la qaadanayaa oo visitedka la qaadanaya markii markaas click lagu sii siinayana waxaa la qaadanayaa stateka oo activeka macnaha oo haddii aan jilciyo waxa waaye linki waa markuu caadi u qoran yahay hadda aan iska tirna midkaan oo kaleento linki waxa waaye markuu caadi u qoran yahay uu linkiga yahay oo aysan waxba ka duwanin ama markaas hala booqdo ama yaa la booqanin linkiga markuu caadiga yahay waa macnaha visitedkana waxa waaye
markaas haddii la booqdo sida uu noqonayo. Hadda labadan waa saddexdan waa booqdo, laakiin midkaa maanan booqan. Midkaa maanan booqan, markaas systemka oo visitedka ma qaadanayo amise kale visitedka isbedelkiisa ma qaadanayo because of ku dhufan kan. So hoverka waxa waaye markii lagu dul aadiyo, hadda kan waan ku dul aadiye wuxuu qaadanayaa hoverka uu qaadanaya affectigiisa. oo hoverka waxaa dhahna mar haddii lagu aadiyo backgroundgiisa yellow ha noqdo, kalarkiisana madow ha noqdo. So waa uu qaadanaya mid kastaba. linki waxa waaye dhahnay markuu caadiga yahay. visitedka waxa waaye dhahnay haddii la booqday nooca uu noqonayo. hoverka waxa waaye dhahnay markii lagu dul aadiyo sida uu noqonayo. activekana waxa waaye dhahnay markaa secondkaas lagu dhufanayo sida ay noqonayso. oo markaa hadda click ku siino sida ay noqonayso. oo markii click lagu siinayo linkigaada kalarku yeelanayo ama si kale styleka kareebka soo noqonayo waa markaas. marka cashirkeena intaanu ku egyahay. wassalaamu calaykum.